Asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. Waxaan sii wadaynaa casharkeenii ku saabsanaa si aad u noqoto Algebra Master. Casharkan waa casharkii afraad wey. Okay? Maanta waxaan baranaynaa marka intaan u gudbin inaan simplify ku sameyno equationka. Waxaa muhiim inaad fahantaan marka hore operationada inay leeyihiin inverse wax la dhaho. Haddii aan haysano 4 lagu daray 7 inverse-keeda waa inuu noqdaa 4 laga jaray 7. Okay? Minus plus inverse-keeda waa minus. Haddaan haysano 8 laga jaray 3 inverse-keeda waxa weeye 8 lagu daray 3 minus inverse-keeduna waa plus. Haddaan haysano 3 lagu dhuftay 4 inverse-keeda waxaan leenahay waxa weeye 3 loo qaybiyey 4. Okay? Haddaa haysato 7 ama waxaan dhahaynaa 8 loo qaybiyey 2 inverse-keeda maxay noqonaysaa 8 lagu dhuftay 2. Marka plus inverse-keeda minus waaye minus inverse-keeda waa plus ku dhufo inverse-keedu waa u qaybi inverse-keeduna waa ku dhufo. Okay? Hadda marka waxaan tijaabaan sameynaynaa marka inay ila socotaan in kale saana leenahay kan noo soo dhaweey halkaana imaanaynaa dhag xaggana marka waxaan sameynaynaa su-aasheeda waxay tahay sidan haddaad haysato 2 plus 5 2 plus x iskada saan idinkaga fiican si aan marka hore idinku adkeyn 2 plus x plus 2 equals 4. Okay? haddaan rabtaa in hadda ka shaqeeyo waa inaan isticmaalaa inverse-da idiin sheegayo. Waxaan sameynaynaa markaas waxaan rabnaa inaan ogaano tirada ku qarsoon x-ka gudihiisa. So haddaan inverse isticmaalo plus inverse-keeda muxuu ahaa minus. waxaan leenahay minus 2 minus 2. Okay? labadan waa iscunayaan. halkan maxaa kugu soo haray x bes equal sign-ka waa kuu soo haray 4 minus 2 waa 2. haddaan evaluation ku sameyno oo aan x-ka 2 ku bedelno waa tijaabinaynaa x waa ogaan hadda 2 ku qarsoon mugta gadaashiisa. haddaan inta 2 gelin waxay noqonaysaa 2 lagu daray 2 waa 4. sax. haddaan marka aan xisaabino haddadan 4x equals 8. Okay? halkan ku dhufa ku jirto maahan ku dhufa maxay ahayd inverse-keeda u qayb u ahaa. That means we need to divide 4 halkan xaggana we divide 4 labadaas goosanayaan maxaa inta ku soo haray x 8 4 u qaybi 2. That means x-kan gudihiisa waxaa ku jira waa 2. 4 times 2 ama 4 lagu dhuftay 2 waa 8. soo ma haddana mid kalaan soo qaadanaynaa x minus 4 equals 2 minus inverse-keeda muxuu ahaa yes waa xasuustaa aniga ku daray ahayd soo saas maa halkaana waxaa ku daraysaa 4 soo maa labadan waa isgoosteen inta maxaa kugu soo haray x xaggana maxaa kugu haray 6. wow x 6 ku qarsoon haddii inta 6 tahay oo 4 laga jaro 2 soo baxaysa. That's it. 6 minus 4 2. halkaana mid kala qaadanaynaa marka waxaan leenahay haddaan dhiraano x loo qaybiyey 2 equals 8 divide maxaa ku ahaa inverse times. Okay, that's very good. times 2 times 2 labadan waa naga baxeen meesha waxaa noo soo haray x kaliya kor ku soo hartay equals
16 inta 16 haddii la geliyo 16 divide by 2 8 very good hadda maxaan fahanay sida loo sameeyo inverse-ka waa mahadsantihiin